aganahay waxa weeye halkii ay deganaan jirtay shirkadda lagu magacaabo jiray ee Mareykanka ahayd ee Conoco waad u jeedaan ciid tuurkan ay sameeyeen wixii ka horeeyay 1991 ay carro tuuradan sameyn jireen ay ka buuxiyeen jawaano waxaanu intus doonaa arki doontaan dabcan guriyihii meesha ka dhisnaayeen waxaynu arki doonaa ceelashii laftigoodii guryuhu meesha ka dhisnaan jireen iyadana waa tan sida nin goobjoog ah uu ii sheegay halkaanina waxa ka dhisnaa guryo dhamaantood shaqaalaha ay seexan jireen guryo ay ahayd ay shaqaalayaasha ay seexan jireen dabcan halkaani barkadii biyuhu waa taas aad u jeedaan foornadii rootiga iyadana dabcan halka ayay kaga muuqataa foornadii rootiga waa halka foorno rooti ayay ahaan jirtay iyadana guryahan halkan la deganaan jireen waa kuwan guryihii muuqaalka dhulka waa u jeedaan waxaynu dul istaagaynaa ceel kamida marka ceel kamida ayaynu dul istaagaynaa ceelkaani waa mid kamida ceelashii ay qoday Conoco dabcan ceelkaani ceel dhowr ayuu ka mid yahay oo halkan laga qoday kan waa ceel dhagxaan baa laga buuxiyay afka ka go'an waa ceelkaad u jeedaan iyadana waa arki doonaa ceelka kaleeto oo dabcan muuqaalkiisa waa intusi doonaa ceelashan dhamaantood waxa laga baarayay batrool ayaa laga baarayay in laga helay inaan laga helin dabcan annagu ma hayno laakiin inta badan waxa la qiyaasayaa Puntland in ay ka buuxaan malaayiin barmiil oo shidaal ah inay ka buuxaan oo ka badan Imaaraadka iyo Kuwait iyo Iran iyo wadamada khaliijka oo dhamaantood ku yaala wax ka badan inay ku jiraan Puntland ayaa la rumaysan yahay dabcan xilligeeda ayaa banaanka loo soo dhigi doonaa oo la ogaan doonaa waxa kale oo jirta goobaha istiraatiijiga ah oo hadda maanta aanu halkan aynu joogno waxaan tusi doonaa waxyaalo badan oo alaabta isticmaali jireen alaabadii ay isticmaali jireen baan xabad idin tusi doonaa waxaan aad u jeedaan waa koolo isku dhagan waa wax ma aqaan ciid iyo dhagxaan iyo koolo wax isku dhagan halkaan oo dhan waa iyada kaliya halkaan oo dhan waa iyada kaliya aragtaan waa madow waa ciid madow oo nooca aweeg ma aqaano wax lagu sameyn jiray wax laga sameyn jiray toona 3 xabay ahaa 4 xabay ahaayeen waa aragtaan jawaanka koobaad jawaanka labaad jawaanka saddexaad iyo jawaanka afraad afarta jawaan oo noocan madow ah yaala dabcan halkaan waa ku yaalaan waxa ka buuxa kuwa madow baa ka buuxa jireen alaabadii ay isticmaali jireen baan xabad idin tusi doonaa ceelka labaad oo isnaguna meesha ku yaala ayaa arki doontaan oo isagana dabcan in dhagxun iyo wuxun baa laga buuxiyay qaarkood waa daboolan yihiin oo horey baa loo daboolo inta muuqata hadda oo dhagaxay lagu riday maahe waxa la leeyahay salka hoose ka sii xiran yahay oo ka xiran yahay dabcan dalalkan hadda Mareykanka ayaana si gaar ah u leh oo u sheegta meeshan iyo batroolka iyo wax soo saaray garoonkii waa intusi doonaa isagana diyaaraduhu ay ku soo degi jireen loogu magac daray Conoco garoonka Conoco in loogu magac daray ceelka labaad waa kan ceelka labaad waa ceelkan dabcan isagana dhooba ka buuxda dhoobo ayaa ka buuxda dhagxaan baa lagu shubay waa awdan yahay xilli la bixin doonay xilli kale lama kala oga laakiin kana waa ka labaad ceelka labaad oo hadda aan intusnay mid saddexaad ayaan isna intusi doonaa oo saddexaad oo jira إن شاء الله دي الله ودلو وقلاده أنا صاقع
halkan waxaa ku yaallay suuliyadii meeshaan aad u jeedaan way duntay hadda ciiddii laga qofay ilaa 3 suuli baa ku yaallay ilaa 3 suuli baa halkan ku yaallay waa aragtaan suuliyadii 3 suuli ahaa waa dumeen suuliyadii la isticmaali jiray bayna ahaayeen shaqaaluhu dhammaantood 3 hog bay isticmaali jireen bay ahayd waana duntay muddo badan ka bacdigeed yaal ceelkan waa ceelkii saddexaad ceelkii saddexaad weeye ceelkan dabcan kuwii hore waa ka bedelan yahay kan waxaad moodaa inuu u diyaarsan yahay naaskii qaadi lahaa saliid inuu u diyaarsan yahay baad moodaa kan waad aragtaan waa birta ay u jeedaan insha Allah iyadana waa bal arki doonaa haddii Allah awood leh oo ogolaado dabcan kuwa kala badan baa inoo dhiman way naga horeeyaan waa u diyaarsan yahay kaas